dagaalkani dhexmaray wadamada Carabta iyo Israa'iil waxa lagu magacaabaa dagaalkii bishii Oktoobar waxaana uu dhacay 1973. Magaca dagaalkani dhanka wadanka Masaarida waxa looga yaqaanaa dagaalkii Ramadaanta. waayo dagaalkani waxa uu bilowday iyadoo lagu jiro 10ka bishii barakeysnada Ramadaan. asaate dhanka Israa'iil waxa looga yaqaanaa Yawm Kippur waana mid kamid ah maalmaha ay qadariyaan dadka Yuhuudda ah ee ku jira tirsiga taariikhda sanadkooda. si kastaba ha noqotee dagaalkani waxa uu ahaa weerar si wada jira ay si hoose ugu qorsheeyeen isla markaasina ay go'aansadeen wadamada Masar iyo Suuriya. waxaa kaloo dagaalkani moraal ahaan taageero ka geystay wadamada Urdun iyo Ciraaq. ujeedada ugu weyn ee dagaalkani ay Masar iyo Suuriya ka lahaayeen ayaa ahayd in dib ay u soo ceshadaan dhulkii Israa'iil ay ka qabsatay dagaalkii 6 maalmood socday ee 1967 Israa'iil ay kaga guuleysatay wadamada Carabta isla markaasina ay kula wareegtay qaybo kamid ah dhulka wadamadaasi. gaar ahaan wadanka Masar, Israa'iil waxay ka qabsatay gabi ahaanba jasiiradda Sinai, halka Suuriya ay ka qabsatay buuraleyda Golan High. boqortooyada Urdun, Israa'iil waxay kala wareegtay kalaba dhulka boqortooyadaasi ay ka talin jirtay. sidaas oo ay tahayna wadamada Suuriya iyo Masar waxay abaabuleen dagaal ay ku doonayaan inay ku soo ceshadaan dhulkaasi ka maqan ee Israa'iil ay ka haysato. Mareykanka iyo midowgii burburay ee Soviet-kuba waxay caawimo xad dhaaf oo dhanka dagaalka ay siinayeen labada dhinac oo u kala ahaa xulafo ay qadariyaan xiriirkoodana waa Israa'iil oo Mareykanku uu taageerayay iyo midowga Soviet-ka oo saacidaya Masar iyo Suuriya. taariikhyahanadu waxay qoreen ama ay sheegeen in xilligaasi ay wax yar ku sigteen labadaasi quwadood inay gacmaha isula tagaan oo si toos ah ay ugu biiraan dagaalka si uu isugu bedelo mid toos ah oo dhaxmaraya Mareykanka iyo midowga Soviet-ka oo labaduba ku hubaysnaa hubka wax baabi'iyeen nuclear-ka. waxaana 4 bilood kadib 1971 markii xukunka wadanka Masar uu qabsaday madaxweyne Anwar Sadat waxa uu muuqday in ciidanka Masaaridu aanu lahayn awood ay ku soo ceshan karaan saxaraha ka maqan ee Sinai. hubka ay isticmaalayaan uu yahay mid duuga marka loo eego kan ay haystaan militariga Israa'iil. sidaas awgeedna Anwar Sadat madaxweynihii Masaarida xilligaasi heshiis nabadeed ayaa uu bandhigay Israa'iil kaasoo kaga dalbanayo Israa'iil inay iskaga baxdo dhulka ay Masar ka qabsatay dagaalkii 6 cisho socday ee 1967. hase ahaatee haweeneydii xilligaasi ra'iisul wasaaraha ka ahayd Israa'iil Golda Meir ayaa ku gacan saydhay dalabka madaxweyne Sadat uu Israa'iil kaga dalbanayo inay iskaga baxdo dhulka saxaraha Sinai ee ka qabsatay Masar. Why should I believe now after this experience that anybody, under any circumstances, can assure us of something more tangible now than we had in the past? waxaana ay sheegtay in xilligaasi aanay ugu muuqanin dalabka Masaaridu mid wax ku oora. sidaas awgeedna xukuumadda Masaarida ee uu hogaaminayay Anwar Sadat waxa uu doortay dariiqa kaliya u banaan oo ah Masar inay dagaal isu diyaariso. Mr. Anwar Sadat waxa uu maanka ku hayay laba amuurood oo kala ahaa in aaga dagaalka aan sidaasi loo balaarinin oo la soo xadido maadaama marka dagaalku bilaabmo ay kolleyba jiri doonaan faragelino quwadaha caalamku ay soo faragelin doonaan dagaalka marka la eego labada dhinac. waana shax uu soo bandhigay wasiirkii gaashaandhigga xilligaasi ahaana taliyihii ciidamada ugu sarreeyay Saacad al-Shasli. اللي نقدر نقول به في حدود إمكانياتنا نعبر. qaybo kamid ah ciidamada lugta ayaanu ka tallaabinay marinka Canal Suez. waxaanu dejinay meel qiyaastii 15 kilomitir gudaha u ah ama gudaha ugu jirta saxaraha la doonayo in la xoreeyo ee Sinai. sidoo kale waxaanu sameynay dallad gantaalaha difaaca cirka si aanu u yareyno khasaaraha cirka ka soo gaari kara ciidamada. sidaas awgeed cadowga iyaga waxay u tahay laba mid inuu sameeyo inuu dagaal toosan la galo oo khasaare xoogani markaasi aanu aaminsanahay inuu ka soo gaari karay iyo in aanu ku soo dhici karin oo uu ka joogsado
si khasaarahaasi uga badbaado ayaa uu yidhi Saacad al-Shasli wasiirkii difaaca masaarida xilligaasi. يتوقف نتيجة الخسائر الكثيرة. si kastoo ay ahaataba Mr. Sadat waxa uu falowgeeda qabtay in dagaalkani uu isu diyaariyo oo uu raadiyo xulafo ay iska kaashadaan. xulafada ugu dhow ee xilligaasi awood gobolka ku lahayd ee uu helay Mr. Sadatna waxa uu ahaa Xaafid al-Asad oo 1970kii Afgaan ciidan kula wareegay xukunka wadanka Suuriya. asaatee intii uu hayay xilka wadankaasi waxa uu dhisay ciidamo xoogan si uu dib ugu soo ceshado dalkiisu buuraleyda Golan High ee Israa'iil ay ka haysato. Xaafid al-Asad dagaalkii dalkiisa lagaga qabsaday buuraleyda Golan High waxa uu ahaa xilligaasi wasiirkii gaashaandhigga. jabka wadankiisa gaarayna waxa uu dusha ka saaray maamulkii markaasi xilka hayay, waana sababaha loo tirinayo inuu afgambiyo dowladdii xilligaasi jirtay. Anwar Sadat iyo Xaafid al-Asad waxay isweydaarsadeen booqashooyin kala duwan oo labada wadanba ay ku kulmeen. kulamo xiriira oo dhex maray hogaamiyaasha Masar iyo Suuriya. ugu dambeyntii waxay go'aansadeen inay weerar wada jira ku qaadaan Israa'iil, kaasoo ay ugu magac dareen dagaalkii Badr oo ahaa dagaalkii Nabiyullaahi Muxamed uu kaga adkaaday dadkii islaamnimada aan aaminsanayn. markii ugu dambeysay ay kulmeen dabayaaqadii bishii Oktoobar ee sanadkii 1973 Anwar Sadat iyo Xaafid al-Asad waxaa si hoose oo aan labada wafdi mooyee warbaahinta aanay ka warqabin ay u go'aamiyeen maalinta rasmiga ah ee weerarka ay bilaabi doonaan, waxaana ay calaamadsadeen maalinta bisha Oktoobar ee 1973 oo ku beegnay 10ka bisha barakeysan ee Ramadaan oo dhanka Yuhuudna ay ku beegan tahay maalinta ay u yaqaanaan Yawm Kippur oo ah maalin ay qadariyaan oo ku jirta tirsiga taariikhda Yuhuudda. waxaana ay isku waafaqeen in maalintaasi labada ciidan ee Suuriya iyo Masar ay qaadaan weerar kadisa. halkaasi markii ay marayso ee aan weli la gaarin xilligii dagaalkaasi uu bilaabmi lahaa ayaa 13kii bishii Sebtembar ee isla sanadkaasi diyaarado dagaal oo ah nooca jedka loo yaqaano oo ay leeyihiin Suuriya iyo Israa'iil ayaa isku dhacay iyagoo iskaga hor yimi badweynta Mediterranean-ka. militariga Suuriya ayaa 13 diyaaradood halkaasi ku waayay, Israa'iilna waxa la sheegaa hal diyaarad halkaasi inay kaga burburtay. dhinaca Israa'iil waxay isu diyaarisay abaabul ciidan oo aan gaarsiisnayn heer dagaal, iyadoo hogaamiyihii sirdoonka militariga Israa'iil uu saxaafadda Israa'iil ku soo daabacay maqaalo ku aadan in militariga Masaaridu ay u eg yihiin saansaan dagaal inay isu diyaarinayaan, inkastoo aanu ka warhaynin sirdoon ahaan go'aanka ay isla meel dhigeen Anwar Sadat iyo Xaafid al-Asad ee dagaalka wada jirka muujinaya. haddana umay muuqanin dagaal xilli dhow lagu soo qaadi karo Israa'iil. asaatee xaaladda ayaa hal mar isbedeshay. Ashraf Marwan oo uu sodog ahaa madaxweynihii hore ee dalka Masar Jamaal Cabdinaasir iyo sidoo kale xogayihii macluumaadka ee madaxweyne Anwar Sadat oo ku sugnaa wadanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ayaa sameeyay arrin ka yaabisay dadka Masar, waxaana ay xiriir la sameeyeen sirdoonka Israa'iil ee Mossad, waxaana ay ku wargeliyeen Israa'iil inuu ku soo fool leeyahay weerar ka soo wajahan Suuriya iyo Masar. xitaa waxay sheegeen faahfaahin ku aadan xilliga rasmiga ah ee Masar iyo Suuriya ay ku ballameen in dagaalkaasi Israa'iil ay ku qaadaan. markii warkaasi ay heleen sirdoonka Mossad ee Israa'iiliyiintu, golihii wasiirada ee xukuumadda Israa'iil waxay isugu yimaadeen kulan degdega oo arrintaasi ay kaga xajoonayaan. dood dheer kadib, goor dambe oo habeenimo, wasiirada Israa'iil waxay go'aansadeen in la sameeyo abaabul iyo feejignaan ciidan, waxaana loo yeeray dhammaanba ciidamada kaydka si loo howlgeliyo. Ashraf Marwan waxa uu dhashay wadanka Masar, waxaana uu ku dhashay magaalada Qaahira, waxaana xaaskiisa ahayd gabadh uu dhalay.
madaxweynihii hore waddankaasi masaarida jamaal cabdinaasir oo lagu magacaabo muna jamaal asaatee buugaag laga qoray shakhsiyadiisa waxaa la sheegay sirdoonka waddanka Israa'iil ee Mossad oo kamid ah sirdoonada ugu saameynta badan caalamka inuu ku biiray 1969 xilligaas oo la sheegay qoraallo muhiim oo uu lahaa qaranka masaaridu inuu u gudbiyay waddankaasi Israa'iil iyadoo lagu kala wareegay meel ku taala waddankaasi Ingiriiska gaar ahaan magaalada London 3 maalmood kadibna waxaa la sheegay Ashraf Marwan inuu xubin ka noqday sirdoonka Israa'iil ee Mossad waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyay uu la shaqeyn jiray sirdoonka waddanka Israa'iil Marwan waxaa la sheegay in saraakiisha ugu sarreeyay ee Mossad ay kula kulmi jireen waddankaasi Ingiriiska gaar ahaan magaalada London waxaana xilliyada qaarkood la sheegaa in booqashooyinka ay London ku tagayaan midkiiba ay ku bixi jirtay lacag ka badan 50,000 pound waxaana sidoo kale la sheegay Ashraf Marwan oo ah nin Masaariya asaatee la shaqeyn jiray sirdoonka Israa'iil ee Mossad waxaa la sheegay inuu si toos ah ula kulmay madaxii xilligaasi ee sirdoonka Mossad Sayfi Samir 1973 ayaa Ashraf Marwan waxa uu digniin u diray sirdoonka Mossad digniintaas oo ku aadaneed in Suuriya iyo Masar ay ku soo qaadayaan Israa'iil weerar kadisa taasoo xaqiiqdii saraakiisha Masaaridu ay sheegeen inay ahayd digniin waxba kama jiraan asaatee waxaa la sheegay xilligaasi Israa'iil si toos ah u qaatay digniintaasi isla markaasina ay heegan gelisay dhammaan ciidamadeeda kala duwan taariikhyahanadu waxay sheegaan Israa'iil dhaqaale ahaan inay ku khasaartay 35 milyan oo dollarka Mareykanka warbixintaasi waxba kama jiraanka ah ee uu gudbiyay Ashraf Marwan mar kale bishii Oktoobar ee sanadkii 1973 Ashraf Marwan waxa uu ka warhelay in si dhaba Suuriya iyo Masar ay u qorsheeyeen dagaal ka dhan ah Israa'iil waxaana uu ku wargeliyay madaxii laanta Mossad ee sirdoonka Israa'iil isagoo u sheegaya markaasi inuu si dhaba uga warhelay weerarkaasi ka dhanka ah Israa'iil asaatee mas'uuliyiinta Israa'iil oo ka fogaanaya khasaare mar kale soo gaadha arrintaasi uu ma qaadanin wax dhaba waxaana uu si gaar ah ugu calaamadiyay in 6 bisha Oktoobar oo galin damba in ciidamada Masaaridu ay weerarka bilaabi doonaan militariga Israa'iil arrintaasi dhag jalaq uma siinin balse dhanka waddanka Masar xaaladdu waxay ahayd mid xaqiiqa waxaana isla xilliga uu Ashraf Marwan ku wargeliyay Israa'iil ay noqotay xilliga ay bilaabeen weerarkooda Israa'iil ayaa dhowr jeer waxay uga shakiday Ashraf Marwan inuu yahay basaas labada dhinacba u shaqeeya isla markaasina uu doonayo inuu marin habaabiyo Israa'iil inkastoo askarta badankoodu ay ku maqnaayeen xuska maalinta Yom Kippur oo la sheego inay soomaan dadka Yuhuuddu Masaarida laftoodu waxay ku jiraan soomka maalmaha Ramadaanta saraakiisha difaaca ee Masaarida ayaa iyaga oo sooman haddana waxay ka baarandegayaan xeelado badan oo dhanka dagaalka Yusri Umar oo ahaa taliyaha qaybta labaad ee ciidamada infantariga Masaarida waxa uu leeyahay taliyaha batalyanka aanu ka tirsanayn oo lagu magacaabi jiray Mr. Gardar Das ayaa nagu wargeliyay inaanu soom ka jabino waa 2 duhurnimo كما قد كتبك حتى أننا إيه waanu ku qosolnay balse si adag ayaa uu noola hadlay isagoo noo sheegaya inaanu dhammaan saraakiishu ay soom ka jabiyaan oo ay galaan dagaalka waxaana uu sheegay arrintaasi inay sameeyeen oo soomka ay jabiyeen waxaana uu sheegay inuu ku dhiirigeliyay inaanu jirin qof cabsi dareema isagoo intaasina u sii raaciyay in ay Masar wax iska dhiciso ama dhulkooda la qabsan doono روح ملناش لازمة توجيهات رئيس الأركان عليك إيه هي الكلام ده كله كان حاجة رائعة taliyihii qaybtii 19aad ee ciidamada dhulka Maxamed Al-Sol oo isna kamid ahaa saraakiisha goobta ku sugnaa waxa uu ka sheekeeyay inuu isla xilligaasi u soo galay taliyihii ciidamada Masaarida Saad Al-Shasli waxa uu noo keenay ayaa uu yidhi qoraal tifaftiran oo ay ku xusan yihiin qaabka dagaalku u dhici doono halka ciidamada ay u hogaamin doonaan saraakiishu halka ay ka gudbi doonaan ee ku aadan marinka Suez sida ay isugu xidhnaan doonaan iyo macluumaad kale oo la yaab leh الكلام ده كله كان حاجة رائعة 5 qaybood ayaa loo kala jabiyay ciidamada dhulka Masaarida waxaana ay ka talaabeen meelo kala duwan oo kamid ah dhulka Canal Suez dhanka Israa'iiliyiinta waxaa jiray qorshe dagaal oo loogu magac daray Doftikod oo ahaa in la sameeyo 15 meelood oo saldhigyo adaga
kuwaas oo ku dhararan marinbiyoodka kanaal Suez. ciidankaas oo ay saacidayaan ugu yaraan 100 ka mid ah dabaabadaha dagaalka si ay u carqaladeeyaan ciidanka masaarida ee ka soo gudbaya biyo mareenka Suez. Anwar Sadat waxa uu Ciraaq dowla lahaa midowga Sofiyeetka waxaana uu la kulmay hogaamiyihii xilligaas Misr Khrushchev oo uu damaanad qaaday heshiisyo ay kala saxiixdeen oo qalab militari uu ku siinayo wadanka Masar isla markaasina uu kaga taageerayo sanadaha dhinaca militariga isagoo Mr Sadat dhinaca kalena maanka ku haya in Israa'iil ay dhankeeda ka heshay Mareykanka saalad militari. dadweynaha masaarida ayaa dibadda isugu soo baxay markii ay maqleen in madaxweyne Sadat uu diyaariyay ciidamada masaaridu inay weeraraan wadanka Israa'iil. dadweynaha masaaridu xilligaasi dabcan waxay xusuusnaayeen dagaalkii ciidankooda lagu jabiyay oo 6 sanadood markaasi laga joogay. manay doonaynin in mar kale dagaal lala galo Israa'iil inta ay ka xoogaysanayaan isla markaasina ciidamada masaaridu ay ka soo kabanayaan jabkii ka soo gaaray dagaalkii 6 maalmood. يا سيدي كان في إحساس فظيع جمال الجتني oo xilligaasi ahaa suxufi iyo qoraal Masaariya waxa uu leeyahay dadweyne badan ayaa isugu soo baxay fagaaraha Tahriir Square ee magaalada Qaahira waxaana ay dhaleecayn badan dusha kaga tuureen xukunka Anwar Sadat. xiisada ayaa abuurantay iyadoo dadkuna aanay doonaynin sida Sadat uu wajahayo dagaalka Israa'iil. inkastoo dadweynuhu ay wadooyinka joogeen iyagoo dareenkooda muujinaya haddana Anwar Sadat ma joojinin hadafka dagaalka. Masar waxay lahayd xilligaasi in ka badan 1 milyan oo ciidamo oo ku qalabaysan hubka uu soo saaray midowga Sofiyeetkii burburay. dagaalka ka hor ciidamada Israa'iil waxay haysteen gabi ahaanba jasiirada la mooda Sinai waxaana ay ku sugnaayeen daanta waqooyi ee kanaal Suez. waxaana muddo 6 sanadooda labada ciidan ee Masar iyo Israa'iil u dhaxeeyay wax ka yar 200 oo tallaabo oo ahayd inta biyuhu ay fadhiyaan ee kanaal Suez. taasoo macnaheedu ay tahay in askarta Israa'iil iyo masaaridu ay maalin kasta isu muuqan jireen 6 sanadood. بس هذا اللون الكئيب taliyaha qaybtii 29aad ee commandoska masaarida waxa uu leeyahay calanka Israa'iil kiiloomitir kasta waa uu ka babanayay. ciidanka Masarna waxay Suez ka joogeen dhanka galbeed oo halkaasi ay isaga muuqan jireen. lixdii bishii Oktoobar 1973 saacadu markii ahayd 2 duhurnimo dagaalka ayaa si toos ah u bilaabmay. diyaaradaha dagaalka masaarida ayaa ka gudbay marinka Suez iyagoo bartilmaameedkoodu yahay saxaraha Sinai oo ay ku sugan yihiin dabaabadaha Israa'iil isla markaasna fadhiisimo ay ku leeyihiin ciidamada Israa'iil. weerar ayaa halkaasi ay ka fuliyeen diyaaradaha dagaalka Masar. Samir al-Asiis Mikhail oo ka mid ahaa duuliyaashii diyaaradaha dagaalka Masar ee weerarkaasi ka qayb galay waxa uu sheegayaa in diyaaradaha dagaalkii ay wateen ay ku duulayeen joog ilaa 5 kiiloomitir waxaana uu sheegayaa inuu si caadi ah indhihiisa ugu arkayay fadhiisimada ciidamada Israa'iil qaraxyada iyo bambooyinka dhulka ku dhacaya iyo duqeymaha ay geysanayaan diyaaradahoodu iyo dabcan gantaalaha lidka diyaaradaha ee ay ku soo jawaabayaan militariga Israa'iil. عمالة بتزغرط. diyaaradaha Masar ayaa ka soo laabtay weerarkaasi oo ay ku qaadeen fadhiisimada ciidamada Israa'iil iyadoo 8 ka mid ah diyaaradahaasi la soo riday. waana khasaarihii ugu horeeyay ee soo gaadhay. diyaaradaha la soo riday waxa mid ka mid ah duuliye ka ahaa oo ku dhintay madaxweynaha Masar Anwar Sadat walaalkii Caadif Sadat oo ka tirsanaa ciidamada cirka. in yar kadib waxaa bilaabantay madaafiicda artilleriga loo yaqaano oo ooda ay ka qaadeen ciidamada masaaridu.
intii ay socotay duqaymaha artilleriga ilaa iyo 4500 oo ciidamada dhulka masaarida ayaa doonyo kuwa la buufiyaa waxay kaga gudbeen marin biyoodka kanaal Suez. mid ka mid ah saraakiishii ciidamada dhulka ee wadanka Masar waxa uu leeyahay ciidamadu waxa ay ku guuleysteen in ay koraan oo ay ka baxaan darbiga bacaadka la tuulay ka samaysan oo dhererkiisu ugu yaraan gaarayo 20 mitir maaha 4 ama 5 mitir iyo wax la jira waa 20 mitir sida uu sheegayo. حاجة زي الفراشة بتجري. ciidamada Israa'iil ee ku sugnaa saxaraha oo aan sidaas uga fogeen biyo mareenka waxay ku war heleen ciidanka soo talaabay waxaana ay si degdeg ah isugu gureen dabaabadaha ay wateen waxaana ay u soo dhaqaaqeen dhanka biyo mareenka Suez. asaate ciidanka Masar ee ka soo gudbay Suezka waxa markiiba dhulka ay ku rakibeen hubka liidka dabaabadaha oo ay ka horgeeyeen gaadiidkii dagaalka ay wateen ciidamada Israa'iil ee ku hawlgala magaca Doftikor. كان عندي مارين الأسئلة هل هو صاروخ للقوة التدميرية؟ taliyihii ciidamada dhulka wadanka Masaarida ee xilligaasi waxa uu leeyahay waxaanu isweydiinaynay su'aalo aad u badan in hubkan la isku halayn karo oo wax burburin kaliya in kale asaate markii la isticmaalay ayaa wax badan ku ogaaday wax qabadka hubkaasi. The previously mighty tank waxaana uu sheegay in casharro badan ay ka barteen ciidamada dhulka Masar. 3 saacadood oo dagaalkaasi uu socdayna 45 batalyan oo ka tirsanaa ciidamada dhulka Masar oo u dhiganta ilaa 32,000 oo askar ayaa saxaraha dhex yaacay oo dagaalkaasi ka qayb galay waxaana ay qabsadeen fadhiisimadii ciidamada Israa'iil. tiro aad u badan oo kamid ah dabaabadaha dagaalka ciidamada Israa'iil ayaa halkaasi lagu burburiyay waxaana sidaas ku fashilmay howlgalkii difaaca Israa'iil ee Doftikor loogu magac daray. qaybo kamid ah guutooyinka injineerada ee militariga Masaarida ayaa la yibi hindise gaadiidka culus lagaga tallaabinayo marin biyoodka kanaal Suez. maalintii labaad ee dagaalka ciidamada Masaaridu waxay gaareen guulo xidhiidha ugu yaraan 100,000 oo askari 1,000 kamid ah dabaabadaha dagaalka iyo 10,000 oo gaadiidka kale ayaa waxay ka gudbeen kanaal Suez. ciidanka Masar ayaa markaasi waxa la sheegay inay u muuqdeen inay ka soo kabteen magac xumadii ka raacday jabkii 67kii ay u geysatay Israa'iil oo ahaa dagaalkii Carabta iyo Israa'iil ee loogu magac daray dagaalkii 6 maalmood. haatanse waxay soo hooyeen guulo dhanka dagaalka waxaana ay muujiyeen inay difaacan karaan dhulkooda Masar iyadoo aan wax gacana laga siinin dagaalka. guud ahaan magaalooyinka Israa'iil waxaa laga dhawaajiyay qayladhaanta dadweynaha loogu sheegayo in dagaal uu ku soo socdo isla markaasina ay suuragal tahay in magaalooyinka wadankaasi la isla soo galo. isla xilligaas ayaa ciidamada Masar waxay ka soo gudbeen marinka Suez ee dagaalka ay ka bilaabeen. ciidamada Suuriya ayaa diyaar garow dhankooda kaga jiray buuraleyda Golan High sida uu sheegayo madaxii howlgelinta xilligaasi ee militariga Suuriya Cabdirasaaq Al-Dardari. فتح الرئيس حافظ madaxweyne Asad waa uu gacan qaaday waxaana uu ii sheegay in la joogo bilowga dagaalkii Badr oo uu dhowr jeer ku celceliyay magaca Badr oo uu la jeedo gulufkii ay ku heshiyeen Anwar Saadaat inay mar kaliya ku wada qaadaan Israa'iil. بدر بدر بدر
بدر. 150 diyaaradaha dagaalka wadanka Suuriya ayaa bilaabay duqeymo ka dhana fariisimada ciidamada Israa'iil ay ku sugnaayeen buuraleyda Golan High. waqti kooban kadibna waxaa bilaabantay duqeymaha madaafiicda artilleriga loo yaqaano, taasoo dhabaha u xadhay dagaal dhinaca dhulka. Afantariga Suuriya waxaa loo kala jabiyay 3 qaybood oo ay ka qayb qaateen ugu yaraan 40,000 oo askarta wadanka Suuriya iyo 6,000 oo dabaabadaha dagaalka, waxaana ay u soo dhaqaaqeen dhanka Israa'iil iyagoo ka soo gudbay xariiqdii xabad joojinta ee Israa'iil ay kaga soo hadhay ciidankii Suuriya markii ay ka guuleysatay 67kii. markii uu 2 saacadood oo dagaal ay socday, ciidamada Suuriya waxay gaareen guulo la taaban karo, waxaana ay qabsadeen mid ka mid ah xarumaha muhiimka ah ee ciidamada Israa'iil oo ku taala buurta ugu dheer buuraleyda Golan High oo 2,000 fiit ka sareysa heerka badda. وصلت قوات والقوات السورية. waxa uu yidhi kolkii hore ciidamada dhulka ayaa weerar ka fuliyey, markii dambena waxaanu u dirnay ciidamo saaran mid ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kacay helicopteriska loo yaqaano, waxaana uu suuro gashay inay gudaha u galaan xaruntaasi isgaarsiineed oo ay ka taagaan calanka wadanka Suuriya. waxaana uu ahaa warkii noogu farxadda badnaa ee aanu maqallo saacadihii ugu horreeyay ee dagaalkaba. waxaana xusid mudan in dagaalkaasi ciidamada Suuriya ay ka qayb qaateen qaar ka mid ah komandooska Falastiiniyiinta. intii dagaalku socdayna 13 militariga Israa'iil ayaa dhintay, 30 kalena maxaabiis ahaan ayaa loo qabtay. waxaana la sheegaa in jiidaasi ay ku sugnaayeen ugu yaraan 200 oo askari oo Israa'iiliyiin ah, kuwaas oo joogay in ka badan 10 xarumood. waxaa kaloo halkaasi ku sugnaa ilaa 180 dabaabadaha dagaalka. Afeegadoor Kahalani waa taliyihii qaybta 77aad ee batalyanka taangiyada Israa'iil, waxaana uu ka sheekeynayaa jabkii iyo sidii looga awood batay. והסתכלתי מזרחה וראיתי פסי אבק. waxaana uu sheegay ugu horreyn inay isku dayeen inay isticmaalaan duqeymaha meelaha durugsan si ay u joojiyaan ciidamada Suuriya, balse in aad loogu soo dhawaaday. ugu dambeyntiina uu fashilmay howlgalkoodii difaaca. waa maalintii afraad ee dagaalka. taangiyada wadanka Suuriya waxay soo dhex galeen buuraleyda Golan High, waxaana ay aad ugu soo dhawaadeen magaalada Qunaydira oo ah xarunta buuraleyda la haysto ee Golan High. الخبر الثاني الهائل كان Mr. Dardari waxa uu sheegay in mar kale loo soo sheegay in ciidamadoodu ay gaareen magaalada Qunaydira iyo sidoo kale magaalada Al-Khashniya oo dhanka koonfureed ka xigta deegaankaasi. sidoo kale ciidamada Suuriya ayaa sii waday gulufkooda, waxaana ay qabsadeen dhul badan. asaatay mid ka mid ah wadooyinka muhiimka ee isku xidha buuraleyda iyo dooxada Urdun ayaa ah mid aanay joogin wax difaaca, waxaana ciidanka Suuriya loo sheegay inay joojiyaan sii socoshada oo ay dib isugu diyaariyaan weeraro kale. xaafid al-Asad, madaxweynihii dalka Suuriya ahaana taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada, waxaa la sheegay inuu waqtiga ugu badan uu ku qaadan jiray xarunta taliska ciidamada, halkaasina inuu seexan jiray oo aanu ka bixi jirin tan iyo intii dagaalku socday. وغرفته في نفس المقر. ciidamada Israa'iil ayaa si degdeg ah loo soo abaabulay, waxaana loo diyaariyay taangiyo iyo ciidamo hor leh oo abaabulan inay ka hortagaan ciidamada Suuriya. militariga Suuriya uma suuro gelin in 24 saacadood ay kula wareegaan Golan High inta aanay soo gaarin ciidamada cusub ee rogaal celiska. si kastaba ha noqotee, ciidamo badan oo wata dabaabadaha dagaalka oo dhanka Israa'iil laga soo diray ayaa gaaray buuraleyda. iyadoo militariga Suuriya ay isku dayeen
inay qabsadaan magaalada istiraatiijiga ah ee nafakh oo ay uga soo gudbi karaan biriishka caanka ah ee muhiimka u ah Israa'iil kaasoo haddii ay Suuriya gacanta ku dhigi lahayd ay qabsan kartay kala badh dhulka Israa'iil hase ahaatee aanay arrintaasi u suura gelin waxaana soo gaadhay ciidankii gurmadka ahaa waxaa la burburiyey qaar ka mid ah gaadiidka dagaalka ciidamada Suuriya. xaafid al-Asad ayaa isugu yeeray dhammaanba taliskii ciidanka kadib markii laga gacan sarreeyay ciidankooda waxaana lagu taliyey in ciidan kale la diro hase ahaatee waxa uu in muddo la isku maandhaafay xilliga la diraya ciidamada cusub ee Suuriyaanka. أحد المواقف أن لواء xaafid al-Asad ayaa uu sheegayaa inuu aad uga cadhooday isla markaasina uu amray in si degdeg ah loo diro ciidamo hor leh balse waxaa la sheegay khaladka Suuriya inuu ahaa inay dib u raaceen istiraatiijiyadii hore ee ay ku jabeen ciidamadooda hore taasina waxay horseeday in mar kale jab ay la kulmaan ciidamada Suuriya isla markaasina Israa'iil ay burburisay ugu yaraan 200 oo dabaabadaha dagaalka Suuriya. khubarada ku xeel dheer dhanka militariga ayaa arrintaasi waxay u aaneynayaan in Israa'iil ay Suuriya kaga fiicnayd tayada ay leeyihiin taangiyada dagaalku. marka ay halkaasi marayso militariga Israa'iil waxay qaadeen weerar rogaal celina waxaana ay dib u riixeen militarigii Suuriya oo ay dib ugu celiyeen halkii hore waxaana ay dhulka la simeen oo ay baabiyeen 3 meelood oo 2 meelood qalabkii dagaalka ee Suuriya. sidoo kale waxay qabteen maxaabiis badan oo ka tirsanaa militarigii dalka Suuriya. هناك دبابة تتفوق عن دبابة تستطيع دبابة إسرائيلية واحدة قابلها. mar kale khubarada militarigu waxay sheegeen in labadii maalmood ee ugu horeysay dagaalka guushiisa ay gaareen ciidamada Suuriya ay ku beertay xamaasad oo aanay wax badan ka fiirsanin. خلال 3 أيام الأولى dhanka saxaraha Sinai iyo jiida Masaarida haddii aynu dib ugu noqonana ciidamada Masaaridu waxay ku guuleysteen inay la wareegaan dhowr meelood oo fadhiisamo u ahaa ciidamada Israa'iil. asaatee xukuumadda xilligaas ee Israa'iil waxa ay u dirtay ciidan ku sii wajahan dhulka ay qabsadeen militariga Masar. ciidanka waxaa ka mid ahaa 2 ka mid ah saraakiishii ugu caansanaa militariga Israa'iil waa Ariel Sharon oo kol dambana ra'iisul wasaare ka noqday Israa'iil iyo Adam Abraham oo mid kastaaba uu wato ciidamo ku hubeysan ugu yaraan 300 oo dabaabadood waxaana ay damceen inay dagaalka kala hortagaan ciidamada Masaarida waxaana ay isu kala qaybiyeen 2 aag oo dhanka waqooyiga iyo dhanka koonfureedda iyagoo mid kastaaba uu doonayo inuu meesha ka saaro ciidanka Masar ee Suez ka soo gudbay. Suddenly, we see the tanks of our brothers moving in the plain, but it's not a division which is... Yuridan waxa uu ka mid ahaa wariyayaashii Israa'iiliyiinta ee la socday ciidamada militariga isla markaasina ka soo warramay jiida dagaalka waxaana uu tilmaamayaa in ciidanka Masaaridu ciidankii Israa'iil duqeyn baanina ay dhex martay. Our eyes, a terrible enemy fire, shells in the desert, box of fire around any tank. Boom. خدنا اوامر بالضرب نطلع ثانيه وطلع ثانيه. sarkaalkani oo isna ka tirsanaa ciidanka dhulka Masar
waxa uu leeyahay milatariga masaaridu si aada ayay u fashiliyeen qorshaha dagaalka Israa'iil ay wadatay, waxaana si aada ay u ammaaneen askarta oo mid kastaaba uu isku dayayo inuu burburiyo dhowr ka mid ah dabaabadaha dagaalka ugu yaraan. arrintaasina waxaa ka marakacay mid ka mid ah saraakiishii milatariga ee Israa'iil ee xilligaasi oo sheegaya inay la kulmeen ciidan si aada uga abaabulan isla markaasina ka firfircoon kii hore ee Masar ay ku ogaayeen markii ay jabiyeen Masar dagaalkii 6 cisho ee 1967 ku dhaxmaray saxaraha Sinai, isla markaasina Israa'iil ay ku qabsatay guud ahaanba jasiiradda Mooda. waxaana walaac ka muujiyay sida dagaalka ay u maamuleen ciidamada masaaridu. qorshihii rogaal celinta milatariga Israa'iil waa uu fashilmay, waxaana la burburiyay ugu yaraan 50 taangiyada dagaalka Israa'iil. Aadan Abraham oo ka mid ahaa labadii sarkaal waxa uu ciidankiisa ku amray inay dib uga baxaan goobta dagaalka. sidoo kale askar badan oo Israa'iiliyiin ayaa maxaabiis ahaan loo qabtay. Israa'iil haatan ma awoodi karto inay gaadho guulo la mid ah tii ay gaadhay 1967 oo ay carabta kaga adkaatay duqeymaha diyaaradaha dagaalka. howlgallada dhinaca dhulkana sidoo kale way ku fashilantay. dhinaca hawadana ma awoodi karto inay tallaabo qaado, waayo masaaridu waxay haystaan gantaalaha lidka diyaaradaha kuwii ugu dambeeyay xilligaasi oo ahaa nooca saamka loo yaqaano oo lagu soo farsameeyay dalkii midowga Soofiyeedka. sidaasi awgeedna waxa dhulka ay soo dhigi karaan diyaarad kasta oo soo gasha khadka ciidamadu ay ku sugan yihiin. sida uu sheegayo mid ka mid ah duuliyaashii ciidamada cirka Israa'iil, si kastaba ha noqotee Israa'iil waxay ku adkaysatay inay tijaabiso shabakadaha gantaalaha masaarida, waxaana ay kicisay qaar ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka si arrintaasi ay u tijaabiyaan. hase yeeshee markii ay ka war heleen raadaaradii ciidamada cirka masaaridu, diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil waxay ooda ka qaadeen gantaalaha saamka loo yaqaano, waxaana Israa'iil isku daygaasi ay ku weyday ugu yaraan 48 diyaaradood oo ay hareeleen gantaalaha lagu tuuray. I really don't know. I was flying and my airplane exploded suddenly. I don't remember my parachute. It exploded. kani waa mid ka mid ah duuliyaashii diyaaradihii Israa'iil laga soo riday, waxaana uu sheegayaa inuu ka badbaaday diyaaradiisii oo soo dhacday kadib markii uu baarashuud ka goostay, isla markaasina ciidamada masaaridu ay gacanta ku dhigeen. wixii intaasi ku xigayna ciidamada milatariga Israa'iil waxaa soo gaaray jab aad u xun, waxaana saxaafadda caalamka ay la kulantay askar ka mid ah milatariga Israa'iil oo calanka cad wata, isla markaasina isu soo dhiibaya ciidamada masaarida. مش مصدق ان انا اشوف حمدي الشرباجي waxa uu ahaa sarkaal ka tirsanaa guutada 43aad ee komandooska Masar, waxaana uu yidhi maan islahayn indhahaaga ayaad ku arkaysaa komandooskii Israa'iil oo isa soo dhiibaya iyagoo calanka cad sita. الاستسلام الإسرائيلي كانت ذل مش بالنسبة لي. كابتن مؤتاس الشرقاوي isaga laftiisu waxa uu ka sheekeynaya isla amuurtani iyo maxaabiista Israa'iil oo calankooda soo dajinaya iyo maxaabiista Israa'iil oo lagu amray gacmahooda ay kaga soo dajiyaan meelaha uu ka babanayay, isla markaasina la saarayo calanka masaarida. waxaana uu leeyahay xilligaasi waxa uu yahaa xilli aad u xusuus badan, aad ayaan u ilmeeyay runtii. haddii aanan maalintaasi halkaasi joogi lahayn waxaan filayaa inay nafteeda waxyeello soo gaari lahayd. يعني أنا لو مكانه أروح أموت نفسي أحسن. Israa'iil dagaalka masaarida ay la galeen waxaa kaga burburay gaadiid aad u badan, marka la isu geeyana $100 bilyan lagu qiyaasay. אבל מה שקרה במלחמת יום הכיפורים Yuri Milstein waa mid ka mid ah dadka ururiya taariikhda milatariga Israa'iil, waxaana uu sheegayaa in dagaalkaasi ay Masar si aad uga gacan sarreysay, si la mid ah sida ay uga gacan sarreeyeen dagaalkii 6 maalmood socday ee sanadihii 60maadkii. שרת הצבא הזה להפריע. markii uu soo gabagaboobay usbuucii koowaad ee dagaalka Oktoobar, jidadka magaalada caasimadda ee Qaahira oo markii hore ay ku sugnaayeen dadweyne ka soo horjeeday dagaalkani, waxay soo dhaweeyeen guusha ciidankooda ay ka soo hooyeen
toddobaadkii hore ee dagaalka. waxaana ay ku micneeyeen in la helay liibintii Masar lagala hoyday dagaalkii 6 maalmood. asaatee dagaalku usbuucaasi oo kaliya kuma dhammaan kumana joogsanin, waxaana uu sii socday toddobaadyo iyo usbuucyo kale, waxaana aynu ku soo qaadan doonaa barnaamijyadeena kale.